Asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada warbixin xiiso badan oo ku saabsan hogaaminta iyo hal adayga Rooble iyo taageerada uu ka haysto shacabka iyo beesha caalamka. Inaad noqoto hogaamiye waa wax iska caadi ah, laakiin inaad hogaamintaada ku kasbato qulubta dadkaaga iskuna haysa kan kugu mucaaradka iyo kan ku raacsan way adag tahay. waana astaanta kaliya ee hogaamiyayaashu ku kala sareeyaan. Muhiim ma ahan in qof walba hoos yimaado xukunka iyo talooyinka hogaamintaada, sidoo kalena muhiim ma ahan qof walba inuu kugu aragti noqdo, balse waxaa muhiim ah inaad ruux kasta aragtidiisa ku wadi karto maadaama aad adigu hogaankiisa hayso qancintuusina ku saaran tahay. Mas'uuliyaddu way adag tahay, waxayna u baahan tahay dulqaad, tixgelin, qiimeyn, ka warqabka dadka aad mas'uulka u tahay iyo aragti meel dheer ah. go'aanada degdega ah, fudeedka iyo islaawsiisku hoos bay u dhigaan qiimaha mas'uulka, waxayna u badan tahay inaan lagu qancin tallaabadiisa mucaarad iyo muxaafadba. xulashada la taliyaal maan furan oo leh aragtiyo iyo xisaabtan waxay ka saacidaysaa inaad noqoto mas'uul hogaamintiisa aysan dadku ku caajisin. waxaadna noqonaysaa horjooge hal adayg leh oo ka fog eex iyo nin jeclaysi. inaad mas'uul ama hogaamiye ka noqoto dal sida Soomaaliya oo kale ah waad xukumayso dad lamida dadka Soomaaliyeed, mas'uuliyadaadu waxay u baahnaanaysaa feejignaan maxaa yeelay waxaad xukumaysaa dad wada siyaasad ah, wada cilmi ah, wada dawlad ah, sidoo kalena dhammaantood wadaniyiin ah. ujeedada warbixintaydan waxa ay tahay habdhaqanka hogaamineed ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. waxa uu joogaa muddo kooban, waxa uu muujiyay sida uu yahay xilkas hagaajin kara caqabadaha ku horgudban socoshada howlaha muhiimka u ah qarannimada Soomaaliya. inkasta oo xukuumaddiisu xilgaarsiin tahay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan inuu ku habboon yahay xukuumad dhammaystiran. tan iyo markii uu xafiiska ku soo biiray waxaa la dareemayay isku soo dhawaasho iyo aragtiyada qaar oo isdiidana oo si tartiib ah isugu soo biiray. waxa uu xalliyay dhibaatooyin badan oo dhacay inta uu xafiiska joogo, oo ugu weynaa dagaalkii Muqdisho ku dhexmaray ciidamadii badbaado qaran ee ka soo horjeeday muddo kororsigii Farmaajo iyo ciidan la rabay in lagu difaaco muddo kordhinta. Rooble ayaana go'aan geesinimo iyo karti hogaamineed qaatay. si cad oo muuqata ayuu madaxweynuhu baarlamaanka hortiisa ugu wareejiyay arrimaha doorashooyinka iyo amniga qaranka, waxaana taasi ay keentay inuu qaato go'aano ay ummadda Soomaaliyeed siyaabo kala duwan u soo dhaweeyeen. taageerada iyo garab istaagga ugu weyn waxa uu ra'iisul wasaaruhu helay markii uu qaatay go'aanka haatan gilgiliya siyaasadda Soomaaliya marba dhan isu rogaysa, kaasoo uu xilka uga qaaday saaxiibkii iyo gacantii Farmaajo Fahad Yaasiin oo ahaa agaasimihii waaxda sirdoonka Soomaaliya. xilka qaadistiisa ayaana ka dambeysay kadib markii tuhun la xiriira dilka iyo afduubka Ikraan Tahliil Faarax uu soo galay isaga iyo qaar ka mid ah xulafadiisii Nisa. ra'iisul wasaaraha ayaana kasbaday qulubta shacabka kadib markii Farmaajo ka hor yimid xilka qaadistii Fahad, isla markaana uu wada hadalka iyo safgaradka labada dhinac ku xiray in la baabiyo guud ahaan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. balse ra'iisul wasaare Rooble ayaa ku adkaystay go'aankiisii xilka qaadista iyo adkeynta baarista kiiska Ikraan, waxa uuna si toos ah ugu wareejiyay xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida. hadalka ugu weyn ee laga hayo ra'iisul wasaare Rooble ayaa ah: waxaan diyaar u ahay inaan idinka dhiciyo xalaqyada, dhurwaayada iyo dawacooyinka hareeraha idinka taagan. iyadoona shacabka Soomaaliyeed ay rajo wanaagsan ka qabaan in hogaaminta ra'iisul wasaaruhu ay dalka u horseedo xasilooni iyo safgarad guud oo dhammaan saamileeda siyaasadda dhexmara, maadaama aad loogu qanacsan yahay go'aanada iyo tallaabooyinka geesinimada leh ee uu qaadanayo. Allah u naxariistay madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa xilkii madaxtinimada iska casilay markii ay isqabteen ra'iisul wasaarihiisii Nuur Cadde, waxaana tallaabadaasi lagu tilmaamay mid geesinimo lahayd. balse hadda sidaasi ma dhici doontaa oo Farmaajo inkasta oo muddo xileedkiisu dhamaaday ma qaadan doonaa tallaabadii Cabdullaahi Yuusuf, mise xurgufta iyo isjiijiidka waa la iska afgaran doonaa.